bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu idinka soo gudbinayno magaalada Manchester. barnaamijkan oo aanu ku eegayno shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ee ay ku shirayeen Somaliland iyo Khaatumo oo markaasi shirkaasi ay ka soo saareen qodobo gaadhaya 11 qodob. arrintaasi ayaa waxaanu wax ka weydiinay siyaasi aadan xasan madoobe oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland kana soo jeeda gobolada bari ee dalka Somaliland. aadan ayaa waxaanu ka weydiinay bal marka hore dareenkiisa iyo sida uu arko heshiiskan hordhaca ah. waxaanu yiri bismillaahi raxmaani raxiim yaasin aad baan ku salaamaya marka hore marka xigta heshiiskaasi ma aha kii ugu horeeyay ama wada hadalkii ugu horeeyay la isugu yimi mar hore laba waftiyo madaxweyne Siinaanyo iyo Cali Khaliif kala hogaaminayaan baa isku arkay Addis Ababa lafteeda heshiiskani waa ka gogoldhigiisii qodobana waa ka soo baxay aad iyo aad muhiim u ah oo ilaa 11 qodob ah oo waxa weeyaan wax badan oo dadka dani ugu jirta ay ka muuqato waa heshiis bilowa taariikhina ah oo si wanaagsan loo dhigay oo dan fara badan ku jirto labada dhinacba khaasatan qoladayada deegaanka ka soo jeeda gobolka Sool koonfurta Sanaag iyo degmada Buuhoodle ka soo jeeda waa heshiiskii aan u baahnayn waxa weeyaan waa heshiis horumarineed oo ka hadlaya arrimaha horumarineed heshiis nabadeed weeyo nabadgelyo ka hadlaya heshiis ka hadlaya hay'adaha iyo sidii looga qaadi lahaa cunaqabataynta hay'adaha deegaanka saareyd heshiis ka hadlaya horumarin fara badan iyo waxa weeye wada qabsi weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaa heshiiska waana taageeraynaa waa ku mahadinayna cid ka shaqeysay iyo labadii wafti ee meesha tagay iyo odayaashii diray waa ku mahadinayna. aadan waxaad ka warantaa faa'iidooyinka heshiiskaasi uu leeyahay guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolada bari. guud ahaan Somaliland wuxuu u leeyahay heshiis taariikhi Somaliland way isu dhamaanaysaa waxa uu iyaguna turxaan bixin u baahanaya Sanaag bari waxa weeye qayb dhan oo maqnayd oo gobolkan Sool iyo Buuhoodle iyo koonfurtaas san hore u sheegay Sanaag oo wax tirsanaysay wax tabanaysay jamaacada ka jireen ilaa SSC ka soo bilow Khaatumo oo ka dambeysay wuxuu soo afjaraya nabadgelyo daradii horumar la'aantii isdhexmar la'aantii iyo waxa weeyaan wixii caqabadaha deegaanka ka jiray oo dhan soo afjaraya heshiis qiimo leh runtii oo si wanaagsan looga baaraandegay oo waliba hordhac ah dhamaadkiisana insha Allah filayno inuu guul ku dhamaado weeyaan. waxaad ka warantaa gobolada adigu aad ka soo jeedo dhinaca baahiyaha asaasiga ama sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo amniga muhiim ah bal ka waran xaaladaas sidee buu heshiiskani faa'iido ugu leeyahay. heshiiskani faa'iidada ugu weyn anagu noo leeyahay wuxuu noogu leeyahay dib u deegaanka yar u dhacay intii waxa weeyaan Somaliland baa la aasaasay dib uga dhacay goboladii kale iyo degmooyinkii kale uu ka dambeeya taana waxa keenay wax tirsi aan miis lala imanay waxa weeyaan ama lala duday oo maamulo kale lala aaday oo iyana waxba ka tari waayay ama markii dambana rabshaday isu rogay oo dagaalo iyo colaado keenay. heshiiskani wuxuu noo yahay muhiim buu aad noogu yahay waayo aasaaskii nolosha sida waxbarasho caafimaad biyo waxba kama jiraan deegaanka yagii marka heshiiskaasi aad iyo aad wax badan lagu soo kordhinaya deegaanka hay'adihii caalamiga oo Soomaalidu sidii dawladda uga dhacday hawiyada hay'adahaas ileen dawladda xima jirin maamuladu hay'adaha unba weeyaan ay dadka wax taro oo dadka ku soo kordhiya hay'aduhuna deegaanka waa ka caagan yihiin qodobada waxa ku jirta in hay'adihii sidii loo keen lahaa looga hawlgalo wax badan hadii la ka dhigo lagu soo kordhinaya waana soo dhaweynaa. maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaankaas ka soo jeeda ahmiyadda aad sheegtay uu u leeyahay heshiiska kani waa maxay fariintan aad u gudbinaysaa. fariintan u gudbinaya waxa weeye heshiiska waa in la soo dhaweeyo waayo danteena ku jirta labada dhinaca hadda ay sarkay qolada maamulka Somaliland ka socotay iyo Khaatumo waxa heshiisku dantiisu ugu badani ay dani ugu jirtaa waa Khaatumo weeye waayo cidda dib u dhacday waa Khaatumo cidda nabadgelyo darrada ku dhacday waa Khaatumo qolada kale lafteedu lama kala maarmo wadada isku deegaan oo isku maamulahe way u baahan yihiin laakiin baahida ugu faraha badan ee heshiiska ka muuqata Khaatumo ay taabanaysaa waxaan ugu baaqayaa inaan dad dana kale leh ka faa'iideysanin
waxaan ku baaqayaa dadka wixii wax tirsanaya inay kala hadlaan dhinaca Khaatumo wax ka tirsanaya ee deegaankan ka soo jeeda inay odayaasha iyo ragga hawsha wada iyo cali khaliif iyo ragga kale hawsha wada lagala hadlo oo wax laga weydiiyo oo wixii ay tamanayaan ama ayaan fahmin ay weydiiyaan waxaan dad kale heshiiskan idin kaale ninaan maanta waxa weeyaan aan waxba idin ku soo kordhinaynin iyo nabadina burburinin nabadu siday ku burburtaa waa fududahay sidayse ku qabsoontaa hawl badan baa loo marayaa waxaan leeyahay meel wanaagsan baa la soo gaarsiiyay wada hadaladii dhameystirkii iyo waxa weeye heshiiska dhameystirkiisina waa sugaynaa laakiin intan waa in lagu mintidaa dadku waa inay gartaan heshiiska iyagu inay leeyihiin inuu dantoodii yahay waa inay gartaan cali khaliif wax dana oo gaara iyo groupkaas soo saxeexay uguma jirto waxay dani ugu jirtaa waa dhammaan dadka deegaanka waxaan codsanayaa dadka u soo jeedinayaa inay soo dhaweeyaan heshiiska kana shaqeeyaan cidii ay u arkaan inay heshiis ka hor imanayso ama ay caqabad ku tahayna ay meel uga soo wada jeestaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii wada hadallada furay maxaad isaga aad oran lahayd waxaan oranayaa waa ku mahadsan yahay madaxweynuhu waajibkiisa uu gudanayaa wada hadalladu muddo waa soo rafanayeen hase yeeshee markii dambe waa bilaabmeen waa ku mahadinaynaa waajibkiisa uu gudanayaa waxa weeye waa hawl uu ku dhiiraday oo muddo ka shaqeeyay muddo qabsoom weeyday markii dambana ilaahay soo gaarsiiyay waqtigan inay qabsoonto madaxweynaha iyo cidii kale ee kala shaqeysay iyo dadkan hawlaha uu dirsada u qabanaya ee sida wasiirada iyo waxa weeyaan dadka kala shaqeynayana waa ku mahadinaynaa shirkan wuxuu ahaa shir kii ugu horeeyay waxaa la qorsheeyay in shir dambe la isugu soo noqdo rajo intee lag baad ka qabtaa in shirkaasi dambe iyo midhaha ka soo bixi doona maadaama kii ugu horeeyay adigu aad very optimistic ku tahay waxaan u arkaa rajo wanaagsan inay ka soo bixi doonto waxaan ku yar noqonayaa waxa hadii la isku dayanayaan ay midho dhalayaan waayo waxaan xasuusanaa wasiirkii biyaha ee hore Baasha Cali Jaamac iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir wasiirka arrimaha gudaha ee hadda oo aan waqtiga wasiirahayn inay ka hawlgaleen arrin nugaasha shirar lagu qabtay oo beelaha maamulka Soomaaliland lagu mideynayay iyo beelihii shirba oo boogays ka dhacay waa si wanaagsan baa la isugu afgartay cuqaashi iyo dadkii deegaanka iyo waxgaradkii iyo qurba joogba waa joogay markii dambana raacadeeya la yimi shirkii oo lagu ballaariyay waxa weeyaan si wanaagsan baa looga hawlgalay oo aan wasiirka hore ee Baasha Cali Jaamac iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir wasiirka arrimaha gudaha ku amaanayno shirarkaasi waa kuwa keenay in markii dambe madaxweynuhu safarada uu dhulka ku mari jiray markii ugu horeysay labadii jeer ugu dambeysay safarada ugu dambeysay waa ta kalsoonida keentay inuu laascaanood seexdo uu hoydo markii hore intuu maalin la yimaado duhur cad oo wixii la kulmay laga noqon jiray waa ta sababtay kalsoonida inta leeg waa ta dadkii deegaanka isku soo dhaweysay waxa weeye dadku sidii waa ta keentay dadku inuu registration vote-ki si la xal looga qayb qaato oo isrejistareeyo oo uu diyaar u yahay vote-kana inuu ka qayb qaato haddii alla ka dhigo marka shirka waa soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo cidii ka shaqeysay iyo howlwadeenadaasiba waa ku mahadsan yihiin aad waxay aqoonyahan ku noqon wadankan Ingiriiska waa maxay kelmadaada ama fariintaada aad u gudbinayso guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan shacabka Soomaaliland oo isku duuban waxaan u gudbinayaa ama khaatumada hadda hawsha soo galaysa haato deegaanka Soomaaliland ama Somalilandii hadda hawsha haysaba haata iyo shacabkeedaba waxaan u gudbinayaa heshiiskan baa ku tirtirsayaa in xukuumad iyo shacab meelu joogaba lagu gacan adaygo oo haddii caqabada yimaadaanba filmayna inay yimaadaan oo loo dhabar adaygo oo la isu dabciyo oo loo samro oo la rogrogo oo uu midho dhalo dunida waxaan laga shaqayn oo aan waxa weeye loo hawshoonay ma dhacaan marka waxaan ku soo aan u soo gudbinaya dadka u soo jeedinaya in si la xaadla heshiiska loo ilaaliyo oo uusan meeshaynu ka nimi waa la garanayaa iyo maanta meeshaynu joogno kalsoonida dadka gashay heshiiska qodobada la saxeexay hadeer wax badan bay dadka deegaanka aan ka soo jeedo oo ididiila bay ku soo kordhinayaan maalinta ka dambeysana rajada dadku waa soo fiicnaanaysaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha Allah in ay guul ku soo dhamaato oo shirarka dambe ay guul ku soo xidhmaan daawadayaal barnaamijkeennii oo aanu maanta kaga hadlaynay heshiiskii 17 bishan December lagu qabtay magaalada Addis Ababa intaas ayaynu ku soo koobi doonaa waa xaydiin soo jeedinay barnaamijka anigoo ah Yaasiin Faarax Jees
waxaa dhinaca farsamada iyo kamarada iyo qalabka waa abubakar maxamed cariish. inta aynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.